بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسير سورة المسد. سورة المسد ومكية وأنا سورة دي سودتي النبي صلى الله عليه وسلم انتو كن ولا مقالة مكة وأنا سورة مركز بقلت وني كوادي قرآن كريم آيات كذا waxay gaarayaan ilaa 5 aayadood waxayna ka hadlaysaa oo ka sheekeynaysaa qoyskii soo istaagay dacwadii nabiga sallallahu alayhi wasallam kuna culaadiyay afyaadinba qoyskaas oo ahaa Abu Lahab sawjadiisa iyo cuqubadii markaas ay ka mutaysteen dibadii nabiga ay dhibeen iyo beenintii markaas ay beeniyeen dacwadii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ah inay kala doonaan naarta Allah subhanahu wa ta'ala. Suuradani waxay leedahay sabab ku soo degtay sababkaasina wuxuu ahaa الله سري مركو سود جي قول كيسي وعندي عشيرتك الأقربين ودقنا محمد وقرابة هذا دو وحاوفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بورت صفة وحو نسكوية ري قريش وحو نقول هاي كورم هذان يدي شيئين ويدي صويرة ري عادو صبح داني عم قلب كانوا يرو ميسان لهيدين وحي نقول هين مرو ميسان لهين النبي صلى الله عليه وسلم وحانا هاي ديجي وحايدين كديجي عذابك الله سبحانه وتعالى انتو سنيدون كيمانين وحاسي ججاس له جوابه النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وحنا كيري هلاكسن وقصار محمد وموحنا يدنو كل مسي الله سبحانه وتعالى وحو جواب أبو لهب وحو نسود جي سورة دان الله سري وحو داي بسم الله ما يا عبايانكو بلاوي أقرين سورة دان الله سوء الرحمن نحريس كودا هانين نحريستا الله سوء الرحيم نحريس كان هانين نحريستا صبدها لكسن تيدا أبي لهب لبدي قامت وتنبوي بهلاك سميني أبو لهب wuxuu ahaa mid ka mid ah hadeeradii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana lagu magacaabi jiray Abdul Uzza waxaana lagu baxshay Abu Lahab wuxuu ahaa nin aad u qurxoon wuxuuna ahaa mid ka mid ah dhibaagii nabiga sallallahu alayhi wasallam isna hor istaagi jiray dacwadii nabiga sallallahu alayhi wasallam tabad ha halaagsanto yada Abi Lahab labadii gacmood tabba way halaagsameen ما أقنى محوك ديقيا وكدفاعيا عنه أبي لهب حقي ماله مالكيسي وما كسب وحو شقستو عرورة سيصلى وحو قال يا أبو لهب نار تاد لهب حلع صاحبه وامرأته هبينيدي سنويلك لدونتا نارتا حمالة الحطب وحنبارد بدنيد أبو لهب زوجدي سوحلوك عاوجر أروى كويدي وحايد أم جميلة waxayna ahayd madaxdii dumarkii Quraysheed waxayna kamid ahayd liwaagii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxayna kula kaalmeyn jirtay markaasi zawjkeeda dibada nabiga sallallahu alayhi wasallam heero markaasi dibkeeda gaaro inay xaabo soo aruuriso ay soo saarto dhabarka si ay ugu daadiso nabiga sallallahu alayhi wasallam meelaha uu mari jiray si uu u dhibtoodo umraatuhu haweeneydiisuna way la gali doontaa naarta xamaalatil hadabi xambaarida badneed fi jidiha luqunteeda xaal uu ku sugan yahay ay gali doontaa naarta حبل حركاسو من مسد ليف كسميسان ليف كواجري دقيدة دمرات سورة داني مركز وحا كسوغنا دي عمر قادشة وين oo ah inaysan qofka anficin inaysan waxna u tareerin nasabkiisa iyo sharafkiisa maalkiisa iyo caruurtiisa iyo quruxdiisaba mar Allah subhanahu wa ta'ala haduu ku gaaloway ay tahay markaas waxa kaliya ee qof anfaca amalkiisa